sida la wada ogyahay ilmaha wuxuu ku hadlaa sanadda labaad ugu badan sanadii bar markuu jiro laakiin waxaan dareemay sanadka saddexaad cunug aan hadlayn oo wax feedback haddaad wax ku tiraahdo kugu soo celinayn wuxuu doonaya aadan garanayn isla markaas ay ka muuqato xaaladda normality uu ka baxsan yahay ayaan dareemay sanadka saddexaad ayaan dareemay inuu cunugani uu xanuunkan uu qabo ayaan dareemay xanuunkan autismka waxaa la dareemi karaa cunuga markuu jiro 6 bilood ilaa iyo 2 sano ka hor istaama ka badan yani xaaladda autismka naftirkeeda ay ku sugan tahay saameyn ay ku yeelanaysaa hadda xaalado adag oo ku sugan yahay amba xaalado oo mild ah marka waxaa lagu dareemaa xanuunkan sometimes waalidiinta inta aan la sheekaystay 2 jir ilaa 3 jir marka cunuga hadal ka soo daaho amba cunugii ka yar la dhalo ay arkaan inuu hadlaayo markaas ayay soo baraarugayaan waalidiinta bulshada ka sukow aniga shakhsiyan nolosha aan la noolay cunugayga waxaa dareemi kartaa qof hadda 5 sano jir ama 6 sano jir ah oo aan hadlayn haddii wax yar laga sameeyo maxay tahay noloshu si kala noqonayso ama gidaar madaxa iskugu dhufanayo waa dareemi kartaa intaan bulshada la gaadhin anagii isagii cunugii aan dhalay baa isku cadiban macnaha inaan marna ilaaliyo waxyaalaha dhib ka ilaaliyo maxay tahay mar aan isku dayo inaan maxay tahay aan controlo macnaha inaan mar walba isaga aan maxay tahay si gooniya u ilaaliyo ayay u khasabtay bulsho ahaan markay tahay bulshada ma ficiya lama ciyaari karo ma ficiya maxay tahay way takooriyaan qudhada waxay leeyihiin waa kii wax ka siin waa tuurayaan waa gooni bay iskaga saarayaan si uu qudhisuna halka cuqdad ayuu ka dareemayaa oo maxay tahay xanuunkii ayaa ku sii badanaya sidoo kale waalidiintu waxaan ugu baaqi lahay hadday ku arkaan ilmahooda xaalad ka duwan xaaladaha normalka ah in ay la raadsadaan talo dhaqaatiir talo psychologist ay la raadsadaan ayna dadka caadiga waxay dhahayaan ayna la sii raacraacin مثلا cunug 5 jir uu ku hadlaa amba 6 jir uu ku hadli doonaa amba uu ku socod doonaa haddii wax abnormal oo arko waalidkii in uu la raadsado meeshii oo jawaab fiican ayuu ka heli lahay bulshada aan la noolahay waxa ugu horeeyaan kala kulmo waxay tahay qof aad soo galayso مثلا cunugaadi ku faca oo hadlaayo aad ku imaanayo hooyo wadato maxaa ku dhacay cunugtaada ma hadlayso miyaa maxaa ka qaldan jirro ma jirto adiga marka waxaa imaanaysa inaad isku buuqdid oo aad fakartid dadka qaarkood waxay ku leeyihiin ilma 5 sano ku hadlaan ilma 4 sano ku hadlaan marka kelmadda kaliya oo ka ilooba hadda aan rabo inaan ku darsado qof walba ku dhaho cunugaada muddo u baahan yahay uu hadli doona ha ka yeelin waa horta ina adiga go'aansata ina cunugaada aad fiiriso waxa hadalka ka soo daahiyay muxuu yahay caqabada isoo gaaray heerka waxbarashada inuu wiilkayga iskool iyo aasi karin dugsi qur'aan oo iyo aasi karin fariisanaynin wixii kaloo cayaar ee waan yeersii karaa laakiin oo maanta wixii xun iyo wixii san oon kala saari karin axyaananne oo u maleysid ciyaalka kale inuu ku aqli badan yahay marka ilmaha autismka qabo waxaa lagu yaqaan inuu hadalka ka daaho oo uusan hadlin markuu cunuga hadli karinna waxaa dhib imaanaya inuusan qofka la xiriiri karin taasaa marka waxay keenaysaa inay waxyaabo badan oo maxay tahay wixii ay qabsan lahayn ama dadka inay dhex galaan inuu cunuga marka bulshada ka soocmo inuu waalidkiis la hadli karin walaalihiis inuu la ciyaari karin marka wuxuu noqonaa cunug oo kaligiis inuu asaga kaligiis la joogo kaligiis inuu wax sameeysto rabo oo noqonaa marka cudurkaasna waa cudur la yaqaan ilmaha qaarkood waxa laga yaabaa inay ka fiicnaadaan ay maxay ahaato waxbarasho iyo hadii loo sameeyo iyo tababar ilmahaas in la tababaro oo ayagoo aan xataa kula hadli karin inaad tababari kartid waxyaabaha kale aad u qabaan waxaan ka mid ah aad u fudud yihiin oo ay shaqooyin badan qaban karaan oo ilmahan kale qaban karin waxa laga yaabaa kuwa qaarkood inay xataa noqdaan marka ugu dambayso dad wax badan soo saara xataa oo cilmigooda marka in laga cabsoodana ma aha in la qariyana ma aha waxa fiican in marka hore loo sheego maxay ahaato waalidiintii waalidka oo yaqaaniin noocyada uu yahay kadibna ilmihii la yaqaanay loo soo maxay ahaato isbitaalada iyo inay keenaan qaybta caruurta dhaqaatiirta la soo xiriiraan dhaqamada dadka qaar laga yaabo inay haystaan in la takooro ama bulshada laga faquuqo wax wanaagsan ma aha ayla qofkan dembi uu galay oo hadda maxaad u gashay loogu takoorayo ama loogu faquuqay meesha ma yaalo waa cudur ilaahay uu keenay oo ilmahan ku dhacay waalidka iyo ilmaha hadii la weydiin lahaana inuusan ku dhicin ayay dooran lahaayeen laakiin doorasho iyagu ay leeyihiin ma aha waa cudur sidiisa ugu dhacay taas marka waxay bulshada ay uga baahan yihiin in yacni lagu soo dhoweeyo la garab istaago niyada loo dhiso
arrintan ayada ah maadaama ay ku sabirsan yihiin oo culays ay ku tahay oo yani xaalad gaar ah ay la dhaqmaayaan inay bulshadii ka helaan dhiirigelin booqasho say wax idin yihiin xaalkiina xaguu maraaya in la isbooqdo diinteennu waxaad u dhiirigelinaysa qofka hadduu xanuunsado in loo tago oo lasoo booqdo ajir badan ayaana ku jira marka cudur oo dhan ayaa in la isu booqdo ay tahay cuduradan gaarka ana way ka sii daran yihiin waa cudur qofkii la soconaya ama yani xaaladii caadiga u ahaa si ka duwan